السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وولكم حسين ومر لبعض مرسد عني وضع عشر حيصله ما أنت عشر كنا حكوا سابسيها user interface سيدا هراء عن صوت شغلنا كناك وخلي دونا أكثر إنجنيرين كليا وخلي دونا إن شاء الله تعالى في اللي كان ما كوسيسو ما كجنا كان كلي وحقوق ساعة أكثر إنجنيرين horena waxaan usoo sheegnay waxaa xoogga saaraynaa marka ugu horeyso waxyaabaha basica oo aasaaska aan xoogga saaraynaa kabacdi waxaan u gudbaynaa marka waxyaaba kale aan sameyn lahayn naqshadihii step by step adduunkan step by step stepku markaa gudubto ka labaad u gudbay saddexaad ilaa marka u dambeysa aad gaarto success marka insha allahu tacaala maanta cashirkan wuxuu ku saabsan user interface sidaa hore aan usoo sheegnay cashirkan horreeyay waxaan kusoo qaadanay user interface waxyaabaha laisku yiraahdo وكذا مركو برنامج كان سوق وحاسو شكل waxyaabaha la isku yiraahdo user interface oo application menu oo rifid ka example kay laga bilaabo application menu iyo application button qaybtan waxa loo yaqaan application menu qaybtan waxa loo yaqaan quick access toolbar qaybtan waxa loo yaqaan ribbon qaybtan waxa loo yaqaan navigation bar qaybtan waxa loo yaqaan properties qaybtan waxa loo yaqaan project browser qaybtan waxa loo yaqaan drone area qaybtan waxa loo yaqaan view control bar qaybtan waxa loo yaqaan status bar qaybtan waxa loo yaqaan tab title bar qaybtan waxa loo yaqaan search bar qaybtan information center marka waxyaabaha si dhan waxa isku yiraahdaa user interface sida hore u soo sheegnay programkan waxa uu hadlaynaa 90% 90% waa practical tobanka soo harana waa theory marka maanta waxa arkaynaa qayb kamid ah theory arkaynaa fikirka guud aan arkaynaa fikir guud marka intaan u guda garin waxyaabaha saacada aan soo sheegay waxaan arkaynaa marka waxyaabaha ka horeeya qofku isweydii karo qofkiisu waa maxay architecture waa maxay architecture engineering waa maxay architect saddexdaas aan arkaynaa ka bacdan usii gudbaynaa insha allahu tacaala marka architecture muxuu yahay architecture waxa kale maaha waa art waa sawirkii aan science iyo cilmi science kula xiriiro waa cilmi science waxaa kamid ah mathkia kamid ah physics kamid ah biology kamid ah chemistry inkastoo engineering kaliya oo khuseeyo math iyo physics mararka qaarkood marka chemistry oo soo gala waa loo baahan yahay chemistry waayo biology oo khuseeyo daktarka oo khuseeya marka architecture engineering waa kaliya wuxuu leeyahay waa inay diiradda saara building engineering qaybaheeda kala duwan haddii aan lahayd magaalooyinka haddii aan lahayd baadiyaha iyo haddii aan lahayd waxyaabaha landscape quruxda leeyahay saada ka arkaan sawirkan waa kuwa landscape dhirtii meesha ku beeran laamigii waxyaabihiisa caawaa waxay ka qayb qaadanayaan marka magaalada dhismaheeda quruxdeeda ka qayb qaadanaya bilacdeeda waa landscape baa loo yaqaanaa marka sawirkan saan ka aragtaan qaybtan waxa waaye waa magaalo qaybtan oo waa rural waa baadiyihii dhulkan u jeedaan magaaladan urbankan wuxuu ahaa saan u baadiyo meel aan dhisnayn oo duur ahayn fikir ay gelisay qarash ay gelisay naqshada loo soo sameeyay waxa la soo saamay magaalo qurux badan u jeedaan marka architecture engineering maxaa waan aragnaa architecture waa art and science waa sawirka iyo cilmi science la xiriira iyo building engineering qaybaha kala duwan haddii aad magaalada haddii aad baadiyaha haddii aad qaybaha quruxda waxaa la architecture engineering waxyaabahaas oo dhan waxay isku keenay combine all aspects of the building design dhammaan jihooyinka oo loo baahan yahay dhismaha naqshadaha building design iyadoo khuseyso mechanical ha ahaato electrical ha ahaato structural blueprintigiisa ha ahaato blueprintiga waa shayga fikirkooda aad ku sameynaysa xalaha blueprint calculation yes and notion ha ahaado fikirka guud architect maxaa waaye architect wax kale waa qofka uu sameynaya naqshadaha design kaasoo ku rumeynaya marka dhammaan construction of building dhismahaas waxyaabaha loo baahnayo halaan architect was the person oo qofku naqshadaha uu plans and design and oversees the construction of building markaasa user interface maxaa waaye user interface maxaa tahay marka adiga waxyaabaha aan soo sheegnay marka maxay yihiin waxaan soo sheegnay mid waxaan arki doonaa wax walba wax ka bato marka anaga waxa hore u soo sheegnay waxa xoogga saarayna aaska bacda waxa uu gudbiyay marka naqshadihii aaska xoogga saarayna marka biri kama hadii lagu weydiiyo waa inaad sheegi kartaa qaybtan waxa sii qabataa qaybtan ribbon loo yaqaanaa qaybtan kuwa access to loo yaqaanaa wax walba ay qabato waa inaad sheegi kartaa marka user interface waxyaabaha la isku yiraahdaa maxaa marka asiga interface
waa inaad isfalgashaan oo adigii isticmaalaha waa inaad isfalgashaan aad soo saartaan wax waxtar leh oo fudud oo macquul ah waa inaad soo saartaan good user interface design waxay fududeysaa la finish inaad shaqada aad dhameyso adoonan sabirinbo user interface sababtoo maxaa yeelay qaybtan already waa naqshadu la socda waxa la socda programka la socda waa lagu soo rakibay waa la soo habeeyay marka kama baahan inaad sabirto kaliya waxay kaaga baahan tahay inaad soo qabato aad geliso waxyaabaha easy to use aad u isticmaasho waxyaaba yar loo yaqaana qaybta marka sabir kale kaga muuqdo wuxuu ku tusan qayb walba magaceeda ku tusan si hore u soo sheegnay waa inaad taqaanaa engineering aad jirto engineering aad tahay waa wax walbo quseeyo software kale oo walba aad isticmaalaysid waa inaad ka siisid qayb walba ay qabato marka qaybta application menu quick access toolbar ribbon key waxyaabahaas oo dhan si hore aan soo sheegnay qaybtan waxaa loo yaqaanaa ribbon wax kale ma ribbon wuxuu ku sameeyaa inuu kuu soo bandhigo markii aad wax abuurto markii aad u file abuurto waxyaabahaas ku soo bandhigaa wuxuu ku sii dhamaan tool ba aad u baahan tahay markii aad abuurto project quick access toolbar waxaan soo sheegnay qaybtan loo yaqaano is located wuxuu ku yahay above the ribbon top left kaasoo aad ka helaysid marka amar walba aad u baahan tahay waxaa kamid ah sida dadka safety kamid ah oo kana openka kamid ah undo kamid ah iyo redo undo waxa waaye control z walaal si action ficilka u dameyso waxa u dameyso aad qabato waa inaad control z aad soo ceshan kartaa redo waa more than one action inta badan soo celi kartaa asiga marka waxa labadaba ribbon iyo quick access toolbar waxa lagu sameyn karaa customize project browser ma project browser wax kalmaan waxyaaba project-kada ka heli leeyahay dhamaan waxa ka maamul lahayd hadii aad leedahay floor balance leefada ku jiro ceiling-kii elevation-kii oo afarta jiho east north south west legends oo arki doono schedules-ka sheet-kii families-kii groups-kii waxyaabahaas oo dhan meesha hoos ma leedahay hal project browser aad project-ka ka maamul lahayd family maxaa la family template waa group 2D and 3D levels waa daaqadihii abaabii waxyaabaha waxa isku yaqaana family template loo yaqaana status bar marka view control bar maxaa view control bar wax kale ma wuxuu ku sheegaa asiga current view current view leeyahay wuxuu sameeyaa affected the current view macnaha shaqada hadda aad qabanaysid oo wuxuu sameeyaa saameyn ku yeesha marka inuu ka dhigto shaded inuu hidden ka dhigto wireframe ay ka dhigto waxaas loo yaqaan marka view control bar waana qaybtan view control bar qaybtan waaye daaw ka dhigto shaded realistic shaded hidden wireframe yes waxaa loo yaqaanaa view control bar qaybtan waxaa loo yaqaanaa status bar waxay ku siinay talooyin iyo muhiimad markii aad wax soo bandhigaysid status bar loo yaqaano waa qaybtan yes waxay ka hooseysaa view control bar ay ka hooseysaa navigation bar wax kale maahan waa zoom orbitkii waxyaabahan baankii aad ka sameynaysid markii aad project ka sameynaysid 2D aad 3D ku horumarinay yes waa kana zoom leh soo yareen zoom in zoom out qaybta maxaa loo yaqaanaa navigation bar yes waxa ku horumarinaya marka 2D and 3D waxay ku soo bandhigaa background area yes contact menu wax kale markii aad meel banaan aad ku dhufto right click waxyaaba ku soo baxaa loo yaqaanaa contact menu like soo galo marka right click aad waxa ku soo baxay waxyaaba loo yaqaanaa contact menu marka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka cashirkeena maanta intaas oo lagu ogyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh